waxaa magaalada Gaarisa lagu qabtay shirkii sanadlaha ahaa ee haweenka dacwadka ka wada magaalada Gaarisa. Maxaa haddaba looga hadlaa kulankaasi? Su'aashaasi iyo kuwa kaleba waxaan weydiiyay agaasimaha Machadka Xafsa Bintu Sirin Marwa Xaawo Aadan Guure. waxaan qabnay maanta kulan sanadla ah oo sanad kasta bisha Ramadaan tobankeeda dambe la qabto. kulankaas waxaa la isugu yeeraa dadka dumarka ah ee magaalada Gaarisa ku dhaqan dacwada u dhaqdhaqaaqa dacwada dumarka ku wajahan ha noqdaan macallimiinta macaahida akhrisa ha noqdaan gabdhaha dacwada u baxa oo dadka xaflad soo baraarujiya ha noqdaan haweenka sadaqaadka ururiya ha noqdaan ardada macaahida dhigata qaar kamid ah dacwada ka shaqeeya qaybahaas oo dhan waa meesha la isugu keenaa waa lagu kala warqaataa sanadkii wixii la qabtay waxaa kaloo la wajahaa sanadka soo socdo wixii lagu kordhin lahaa ayaa laga sii hadlaa iyadana saasaan maanta sugnay ururkan waxaa la yiraahdaa ururka gabdhaha ka soo baxay madrasada Khadija Bintu Khuwaylid waxaa la aasaasay 2009 ayaa la aasaasay hadda 10 sano jirsaday waxaa badan magaalada Gaarisa ka bedelay oo ka qabtaa ay ugu waaweyn yihiin maartaa in maanta 6 macahad oo ay gabdha maamulaan gabdha akhriyaan gabdhana dhigtaan maanta ay gacanta ku hayaan sadaqooyin sanad kasta Ramadaanta u xog badnaatay ay ku joogtaan ay jiraan hadda bishan Ramadaan ilaa 950 qoys baa quudinay oo raashin siinay yani xaafadaha kala duwan magaalada Gaarisa maya meel dhaqaale laga soo galay ma jirto waxa way haweenka iyaga ayaa xaafad isu abaabula qaar lacag urursadana lacag bay ku iibiyaan qaarna markii bisha ay soo gasho ay raashin ururiyeen guri kasta la galaa oo ladan raashinka laga soo qaada xaafad walbana waxaan u qoondaynay in iyada dhexdeeda isku filan dadkana dad arkayso oo dadka xaafadaha ka soo shaqeeyay oo sadaqada ka soo guray oo dib u celiyay maartay dadka masaakiinta ugu celiyay weeye wax weyn oo meel naga soo galay ma jirto hadii ka tagayso labada mudane ee gobolnaha iyo MB-ga ayaa waxoogaa naga soo gaaraan aan badnayn laakiin xooga 195 waxa weeye waa isku tashi haweenka dhexdooda ah maya maanta kala qaruurin lama soo maanta waa isxog waraysi isbarasho wixii la soo qabtay anaga riboodka ururina qolada guddiga ah riboodkaas dadka way kala fariisin magaalada ku dhex jiraan waxa hadda ka kooban taqriiban 30 xaafadood dadka yimid marka dadkaas waxaan siinaa heerka ay dacwada marayso sanadka wixii ku kordhay sanadka soo socdo waxa la rabo in la wajaho iyo waxa inay ka shaqeeyaan la rabo intaba wallahi magaaladan dacwooyin kala badan oo kala duwan oo fara badan way soo martay inta badan culimada heerka dumarka soo gaarsiiyay khayr Allah siiyo ilaahay ka abaal mariyo laakiin inta badan waxay ahaan jirtay dacwada dumarka markay aasaasan waxa markay socoto way dami jirtay middan hadda ay bilaabeen gabdhaha madrasada Khadija ayna kala shaqeeyaan haweenka oo idil waxa weeye 10 sano hadda jirsatay wax badan yaa magaalada iska bedelay waxaana dumarka ay xoog u fahmeen laba shay oo marka horena ururka hadafkiisa uu ahaa midka koowaad waxa weeye tacliinta in la xoojiyo dumarka ay wax bartaan iyagoo ilmahooda gurigooda aan dayacaynin inay wax bartaan tiina waa lagu guulaystay maasha Allah ma jirto qof wax baranay ilaa maanta way walbahaarsan tahay wax ka maqan bay ogtahay qodobka kale wuxuu ahaa in dadka baahan nagu dhex nool in iyagana laga warqabo oo yani hal meel laga maamuli karo xaafadda marka dhexdeeda la abaabulay oo loo sameeyay dad ka warhaya oo telefoonkooda la hayo oo meesha dacwada marayso lagala socdo muxaadaro markii loo baahdo dadka diyaariya sadaqa markii loo baahdo riboodka soo gudbiya labada qodob u waaweyn baa hirgalay wax weyn baan markaa magaalada iska bedelay waxaan inta badan hadda haween gaari isku filnaasho iyaga dhexda xagga tacliinta iyo sadaqaadka